السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo ka joogtiin dunida daafeeda magacaygu Axmed Faarax halkaan nagala socotiin waa Mila Media Production isoo kale Mila School saaxiibayaal ku soo dhawaada 10kii shanaad ee software lagu magacaabo Filmora haddaba 10kan shanaad waxaan ku baran doonaa sidee laba muuqaal la isku dhex gelshaa oo muuqaal gadaashiis looga soo muujiyo ama laba muuqaal iskaga soo dhex muujiyo sidoo kale waxaan ku baran doonaa sida laba muuqaal loogu sameeyo speed ama in la isbarbar dhigo sida loogu sameeyo ayaynu ku baran doonaa haddaba si aan guda galno 10ka oo dhameystiran diyaar garow muuqaalka hagaag haddaba saaxiibayaal waxaan sameyn doonaa ugu horreyn waxaan soo geli doonaa aniga labadan muuqaal ayaan soo geli doonaa muuqaalka ay u qorantaa 1 iyo midka ay u qoranta 2 ayaan soo gelinaa kadibna labada muuqaal markaan soo gelsho si la mid ah ayagoo sidooda waxaan keeni doonaa qaybtan timeline-ka labadoodana waxaan ka reebi doonaa codka ayaan ka reebi doonaa mid walba codka ayaan ka reebi doonaa maadaama aan rabo inaan ku sameeyo practice badan maadaama aan rabo ku sameeyo labadooda mid walba codka ayaan ka reebi doonaa saaxiibayaal si aan codka ugu reebo muuqaalka dul taga red click ayaa leedahay kadibna waxaa leedahay touch audio markaad tiraahdo kadibna waxaad dul tagaysaa codka aad select garaynaa kadibna waxaa leedahay delay kan kale ayaa tagaysaa oo sare kadibna codka waa select garaynaysaa red click ayaa leedahay kadibna waxaa leedahay touch audio isagana sidoo kale waxaad tagaysaa codkiisi codka markaas aan select garay kadibna waxaa leedahay delay hadda meesha waxaa loogu soo hartay laba muuqaal oo maartay aan wax oda lahayn haddaba saaxiibayaal labada muuqaal hadda uma wada jeedin waxa u jeedin muuqaalkan kore oo kaliya aniga hadda waxaan sameyn doonaa marka meeshan wixii ka dambeeyo oo kale waa iska jaraa oo maartay wax weynba kama rabo inta yarta ayaan ka rabaa maadaama aan rabo inaan practice ku qaato kana asagoo kale sidoo kale waa imaana asagana meesha wixii ka dambeeyo waan iska jaraa iyadana dileed ayaan leeyahay haddaba saaxiibayaal labada muuqaal waa labadan muuqaal oo maanta halkan idinkaaga muuqata waa muuqaalka ugu horeeya waa kana kan ku xigana waa kana haddaba saaxiibayaal waxaan rabaa marka labadan muuqaal inaan iska soo dhex muujiyo ayaan rabaa oo maartay muuqaalkan ii daaran muuqaal kale hadhowta oo ka muuqdo muuqaalkan background-kiisa dambe haddaba waxaan sameyn doonaa muuqaalka aan rabo kow inuu ka soo muuqdo background-ka ayaa select garaynaa double click ayaa leedahay kadibna markaa double click tiraahdo qaybtan ay kugu qoran tahay transform ay kugu furan tahay ayada ayaa iska xiraysa haddana qaybta aan rabo qaybtan ay ku qoran tahay composition qaybta ugu qoran markuu dhufto hadii aan qaybtan opacity-ga u yaray opacity-ga hadii aan sidan u yaray hadda waxa u jeedaa muuqaalkii waxa ka soo dhex muuqana muuqaalkii kale labada muuqaal hadda waxa waaye waa iska soo dhex muuqana oo yaa soo muuqana kan hoose iyo ka soo dhex muuqana midka kore bal markaan ila fiiri labada muuqaal hadda waxa u jeedaa waa isku dhex jiraan inta badan marka tan waxaa la isticmaalaa markii la diyaarinayo filimaanta iyo barnaamijyada lamid ah barnaamijkaas loogu soo dheeraanana maahay clipka yarka ugu horeeya bis ayaa laga rabaa haddaba saaxiibayaal waxaan rabaa muuqaalkan in aan dhinacaan rabo aan u qalluuci karo ama maarta dhinacaan rabo aan u jeedi karo si aad u sameeyo iyaduna waa ay sahlan tahay waxaa leedahay muuqaalka ay dul tagay double click ayaa leedahay kadibna waxaa soo furaysaa qaybtan ay kugu qoran tahay transform qaybtan kugu qoran tahay transform markaa soo furtid kadibna haddii aan sidaan dhaho waa ujeedaa muuqaalkii sidoo noqona waa ka haddii aan sii wado oo saan iraahdo muuqaalkii waxaa ujeedaa uu kala wareega oo sidaas ayuu shaashada ugu fariisanaa hadba marka adigu nuuc aabta ayaad geysanaysaa balse inta badan meeshan waxaa laga dhigaa 0 ama waxaa laga dhigaa 360 kii kuu sahla ayaa la sameeyaa si muuqaalka uu kugu qabsado cabir sax saaxiibayaal muuqaalkeena qaybta ugu xiisaha badneedna waa qaybtaani waxaan rabaa muuqaalka hadeertaa marka uu sidaan ii yahay in maartay aan muuqaalkan jaro xagoo kale aan geeyo muuqaalkan kale oo ninka kale soo jiido asna dhinacaano kale aan keeno si marka taas aad u sameeyid waxaad isticmaali doonaa wax la yiraahdo crop feed wax la yiraahdo isticmaal doonaa si aad crop feed ku isticmaasho way sahlantahay oo muuqaalka aad rabtid inaad crop ku sameeyid ayaad u tagaysaa kaliya leedahay kaliya markaad tiraahdo kadib waxaad ku sameeysaa inta red click kadibna halkan waxaad ka raadinaysaa crop to feed hagaag crop to feed markaad tiraahdo haddana marka red click ayaa leedahay kadibna waxaad leedahay crop zoom halkan ka raadinaysaa crop and zoom kadibna saaxiibayaal waxaad sameyn doontaa inta aad rabtid inaad iska jartid ayaad maartay aad saas u qabanaysaa kadibna waxaad leedahay muuqaalkan intaas wax ka badan aniga kama rabaa leedahay geestan kana soo kale saan ayaa soo jaraysaa kadibna waxaa leedahay okay markaad tiraadid bal haddaba muuqaalkan cabirka oo ku fariisana ila fiiri waxa u jeedaa isla markiiba wuxuu tagay dhaxbartan buu tagay centerka ayuu tagay marka waxaan sameyn doonaa aniga maadaama uu hadda centerka tagay kan waa soo qabanaa geeskan ayaa keeni doonaa waxa u jeedaa marka muuqaal kale ayaa halka ka soo muuqda waa awoodaan dultaga asagana aan sidaas inaan dhaho waa awooda laakiin saas waxa ka shara badan taas waxa kaaga shara badan muuqaal kale marka uu kugu soo muuqdo sidaan oo qaybtan kan halkan aad geedid inaad kan kala saan dul tagtid aad click tiraadid kadibna aad ku sameeydo wax la yiraahdo crop feed kadibna aad ku sameeydo crop and zoom inaad ku sameeydo crop feed aleeda kadibna waxa leedahay crop and zoom saa marka lagu soo saaro asagana waxa leedahay qaybtan waxaan soo qabanaysaa waa jaraysaa markasta waxaan isticmaal doonaa anaga size-ka anaga aan max taaganaa ma wixii ka badan oo kale ma isticmaalayso halkaas kale ayaa ku leedahay kadibna waxa leedahay okay markaad tiraadid isla markiiba waxa uu muuqaalku qaadan doonaa cabirkii aad u jartay cabirka aad u jartay markuu qaato kadib kan halkaas ayaa geynaa kadib waxaan leeyahay wax yar sidaan igu soo weynay halka marka waxa meesha waxa la yiraahdaa waxa la dhaho split video ama in la isbarbar dhigo
laba muuqaal waxa la yiraahdaa haddaba saaxiib waxay u jeedin labada muuqaal waa kuwa isbarbar yaallo weliba labada muuqaal si toos ah ayay u shaqaynayaan oo isbarbar dhigay wax saameyna kuma ay yeelanayso haddii aad markaa muuqaaladan inaad maartay qalqal loo xidid ama maartay aad labadooda aad wada gadid waad gadi kartaa markaad midkaan kor ay dutay double click ayaa leedahay kadibna waxaad samaynaysaa qaybtan inaad saan u qabatid qaybtan xag u wadid ayaa samaynaysaa haddii iskaalkan iskaal haddaad saan usoo wadno waa zoom markaan hadda ujeedkeenu iskaal maahane waxaan rabnaa inaan muuqaalka inaan gadino ayaan rabnaa si markaa u gadid way sahlanta saas ayaa maartay u samaynaysaa oo qaybta ayaa xagis gelinaysaa labada muuqaal hadda markaa labadooda wada shaqaynayaan laakiin waxay yihiin mid fooraro iyo mid toosan waa labada muuqaal kuwa kala duwan waa haddii aan rabo labadooda inaad iska wada dhigana waad ka wada dhigi kartaa hadba adiga ayay maartay kugu xirantaa okay waxaan rabaa markaa muuqaalkan inaan soo marsho dhinacan kana aan marsho xagga si aad taas u sameeyay way sahlan tahay muuqaalka ayaa double click leedahay kadibna halkaas ay feed ugu qortay ayaad maartay click si doontaa waxay jeedaa muuqaalkii waa uu kala wareegay waxaad samaynaysaa marka kan ayaa soo qaadaysaa kadibna waxaad keenaysaa halkan kan marka halkan keentid kadibna kan ayaad qabanaysaa isagana waxaad geynaysaa dhinacan kale ayaa geynay kana waa soo jiiday waxaad kusoo buuxinay cabirkiisa bal haddaba saaxiib waxay ujeedaa muuqaalkii markaa sida uu noqday waa ujeedaa qof xagga taagan oo kale ayuu noqotay laakiinse adiga ayay kugu xirantaa markasta haddii aad rabtid inaad soo jeedidin isla qayb safiida ayaad ku dhufanaysaa iskaalkan ayaduna waxa ay noo qabta ayaa waxay tahay muuqaalka haddii aad ku samaynayso zoom out ama zoom in waxaa u isticmaali doontaa waxa la yiraahdo iskaal haddaba si aad u isticmaasho double click ayaa leedahay kadibna halkan iskaal ku qorta ayaa tegaysaa kadibna haddii aad dhinacan u wadid waxaa ujeedaa waa zoom in oo muuqaalku kugu soo dhawaana haddii aad xag wadidna waa zoom out ilaa iyo uu gaara muuqaalku heer uu la ekaado sawir intaad rabtid ayaa maartay geysan kartaa adiga ayay kugu xiran tahay cabirka ama markaas rabtid iskaalka iyo sidaa u isticmaale qaybtan waa naqaanayo waa qaybtii positionka in muuqaalku booskiisa ka dhaqaajid xaggeed haddii muuqaalka inaad soo qabatay aad soo jiiday kugu dhib culays kugu tahay qaybta positionka x ayaad xag ugu weysaa haddii aad muuqaalka inaad kala wareejidna qaybtan positionka ee y ayaad maartay u isticmaalaysaa muuqaalka ka kor ayuu u sii baxaa haddii aad hoos u jiidina hoos ayuu u sii baxaa saaxiib waxaan filayaa in si fiican la ila fahmay casharka shanaad oo aan ku baranayna sida laba muuqaal isku dhex gelsho sida muuqaalaha la isku barbar dhigo iyo sidoo kale sida muuqaal loo kala wareejiyo insha Allah tan inta gaar doona casharka xigana waa dhamaantood idin leh isma dhaafno